السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسنا يا إذن الله يا هميلو باد جوكتين وبرنامجكي أول سوغيسين عرورتا تصاب سناي ويجي هراتا مكان كنالك سميي وحان إعلامي إن البرنامج بدن أو برشد واحد تر الآن إذا شير جرين دونو برنامج كورين ونقون دونو عيالك ميسكونو ساري هاي دب كان كسو قاضي إنت البرنامج وجود قلين subscribe ده like share comment waxaan ku dhahay hadii aad wax oo idea haysin comment reeb haduu bilaabanaya let's go barnaamijku uu bilaabanaya qaxoodaada shaaxaaga waxa dhan biyaha you name it waxa cabto dhanbo misk agtaada yaal waxaan ku dhahay ku soo xaq waxa maanta rabaa inaan ku soo qaato episode 1 ama qodobka koowaad ilmaha ina macnaha aan discipline-ka guriga inaan ka dhisno guriga marka si aan u dhisi karnaa guriga waa inuu leeyahay jadwal oo maalinle ah jadwal oo isbuucle ah iyo jadwal oo bil ah iyo jadwal sanadle ah waa inuu leeyahay jadwalka muxuu caawinayaa jadwalka inuu leeyahay jadwal waxbarashada caawiyo oo kabo jadwal akhlaaqda iyo cunuga hab dhaqankiisa ilaaliyo jadwal cunuga maskaxdiisa iyo korishihiisa kor u qaado waxa muhiim ah in maaragtay horta marka hore guriga system oo caruurta ka caawinayo banaanka in laga sameeyo systemkaas yaa sameyn karo adiga oo waalid ah sameyn karo waxaan ku sheegaa ma aan kula share gareynayo wax aniga ii shaqeeyay waay asan asro waay aniga laftirkeyga waxaan ahay hooyo oo meesha ilmo ku kornayso hal doonaan wada saaranahay waa inaan xasuusnaataa jadwalka uu kala baxaya waa sanbuus saddex gees amal uu kala baxaya mid waa mid cunuga akhlaaqdiisa guriga soo uga dhaqmi lahaay ee banaanka waa inay isku dhow yihiin oo example guriga oo dadku cunuga joogo oo maaragtay naftiisa oo ilaaliyo xushmeeyo ilmo kale oo dhasho wala lisdii joogan oo xushmeeyo waalidka oo xushmeeyo dhageysto oo ilaaliyo wax kasta oo waalidka uu sheego marka intuu yar yahay ku bilowdo maxaa ku hirgalayo cunuga jaa markaas waxa waay iskuulkii markuu tago guriga laga soo baray Soomahan wixii guriga laga soo baray oo iskuulka la tagaya ilmihii kale uu xushmeenaya oo fasalka ahay caruur dariska oo xushmeenaya jaa cunugii marka waxa uu hagaagaya systemka iskuulka asiga iyo macalinka iyo bulshada isku daalayaan laakiin guriga hadaad wax kasta markuu ooyaba ama asiiso oo intuu yar yahay aad u tababarinba waxa inay qalad yihiin cunugii banaanka waxa waaye wuxuu ku noqonayaa cunug tilmaaman oo markii uu macalinka maaragtay mar walba uu macalinka uu dacwad ku soo gudbiyo ku dhaca cunugaaga waa saan iskuulku waxa ku hadlaa ilmaha kale oo maaragtay oo qashqashaada markay wax baranayaan cashirka macnaha cunuga concentration-kiisa cashirka ma concentration gareeyo marka waxa soo dhan aad maaragtay ugu farjinaato waa inaad guriga aad system jadwal ugu sameysaa oo caawinayo cunuga akhlaaqdiisa kor u dhigayo oo maaragtay cunuga aad ku barayso wuxuu xaq u leeyahay iyo waxa lagu leeyahay guriga hadaa ku aragto cunuga maaragtay inuu maaragtay oo guriga uu dafdaf badan yahay oo dadka u dhageysanaynin waa inaad la fariisataa ilmaha isku mid ma ahan waa inaad waqti extra gelisaa taas waa mid waxaan rajeynayaa inaa maaragtay hadii aad hore u sameeyay well done ku leeyahay hadii aadan sameeynin aad ka bilowdo maanta ku video aan ku soo gaaro talabaad waxa waaye time oo table oo cunuga oo seexdo waa in loo sameeyaa intuu yar yahay lagu soo baro markuu yar yahay marka aad barto inuu maaragtay dhahdo kale waqti hebla seexanaysa habeenkii saacada aad qorsheenaayo qof walba ilmihiisa nidaamkiisa jadwalkiisa asiga og wixii u fiican laakiin aniga waxaan ku soo gudbinayaa wax markaas aniga ii shaqeeyo salaam markii cunugii aad tiraado kaleeto 3 saac seexanaysa dhahdo 3 saac macnaheedu waxa waaye cunugii inuu soo caday 3 ka hor kareenkiis korka oo marsaday dharkiis jiifka u xirtay sirtiisa u tagay laakiin 3 saac intuu carraso TV ama telefoon ugu jiray ma aha inuu sirtiis ku tuuraayo taas marka waxa ka horeeyo inaad soo bartay system aad u soo train gareysay oo ah inuu cadeysto wixiisna uu sameysto waa inaad ku soo train gareyso oo hoosh shaqadaas waa inaad soo qabatay marka shaqadaas cunuga aad soo bartay oo systemkaas jadwalkaas u dejisay
waxa waa adiga waalidka ma stressaysid jaa cunugan waqtigiisoo dhammayso ku imaana uu kaa gareynaa ducadiisa wixiisu akhrisanaya sirtiisu kaa tegaya taasna guriga waa in lagu jadwalka oo macnaha maalinlaha ah guriga waa in lagu daraa oo joogtada ah taasna waxaa cunuga caafimaad ahaan iyo deganaan iyo xasilooni fara badan adiga iyo cunugaba idinku sugan kan ugu dambeeyo qodobka ugu dambeeyo oo macnaha maanta aan rabay inaan idil sheergareeyo waxa waaye guriga inaad haysato jadwal waxbarashada ilmaha ka caawinayo tusaale ahaan iskuulka waxaa laga soo siiyaa homework iyo warqad uu qoran yahay waxay sameynayaan ma warqadaas bisaad ku eg tahay mase gurigaaga waxa cunugaaga u sameysay jadwal extra ah ani haddaa kula sheergareeyo waxaa ii shaqeeyay bikaalkayga ilmahayga hal saac oo extra ah oo school system aan ahayn ay leeyihiin halkaas saac cunuga waxaan dhahaa buug adiga aad jecesha akhrinaysaa hadda waa aragtay inta badan macnaha qalinka iyo buugga wax lagu qoraayo waa la joojiyey kombiyuutarada ilmaha lasoo siiya iskuulka laga soo siiyaa kombiyuutarka qeyb waxaad ugu furaysaa oo documentary ah documentigaas marka aa u sameysay cunuga wuxuu ku qorayaa maalin walbo buugga markuu akhriyo waxaa leedahay 20 daqiiqo buugga akhrinaysaa 20 daqiiqo buuggaas aa akhrisay aa qoraysaa wixii aad akhrisay maanta jabtarka aa akhrisay ciwaanka jabtarka aa akhrisaa aad u sameynaysaa ciwaan uga dhigaysaa waa ii qoraysaa leedahay haddaa shaqayso haddaa iskuul aad hooyo mashquul ama aad mashquulsan aad tahay weegii 2 maalin control check waxa la ku sameeyo cunugaas markuu waxaas saas uu maalin walba uu sameeyo waxay ka caawinaysaa waxbarashada iskuulka ka caawinaysaa maadooyinka oo macnaha iskuulka lagu dhigo ilmaha way adag yihiin marka ha ku sii deynin ilmaha hooyo ama aabo warqada iskuulka homework kaliya ee macallimiinta soo siiyeen oo systemka iskuulka loo dejiyo ah cunuga ha ku sii deyn extragaas wuxuu ka caawinayaa maadooyinka iskuulka faa'iido kale ay kugu suganto hadda waa aragtay ilmaha waxay ku mashquulsan yihiin adduunka waxaan ku dhahay technology-ga wuxuu marayaa very high level halkaas saac marka waxa uu mashquulinaysaa laftirkeeda macnaha inuu maskaxdiisa maaragtay intuu telefoon ku boodi lahaay oo ama TikTok ama meel maaragtay oo kale uu ku ordi lahaay halkaas saac marka waxaad ugu faa'iideynaysaa inuu wax ku barto wax ku akhristo jadwalkaas marka biiri meeqa jadwal aan kusoo sheegay mid oo maaragtay akhlaaqdii iyo cunuga dhaqankiisii ka caawinayo mid macnaha cunuga nasiinadiisii naftiisa caawinayo iyo mid waxbarashadii caawinayo waxbarashada marka hay noqonaysaa kulanka oo waalidka loogu waco sanadkii 2 jeer iskuulaadka wadamadan waxaa lagu leeyahay cunugaaga maasha Allah waa macallimiinta marka asla fariisataan iyo cunugii wuxuu ku leeyahay kulanka 3 geeska oo cunuga geeskaaga fadhiyo macallinka uu ka soo horjeedo cunugaaga maadooyinka uu ku fiican yahay wax u baahan yahay caawinaad extra ma jirto adiga waxaan weydiinaysaa jaa cunuga waa la soo wareystay adiga ma ogid cunugaaga markuu wuxuu dhahay waxa la adiga faa'iido wax walba okay ku yihiin extra caawinaad ma heshaa laksamaad meen homework meel oo laga caawiyo ma tagtaa gurigeyga wuxuu leeyahay aniga gurigeyga macnaha maalin walbo hal saac extra ah oo 20 daqiiqo oo buug aqriyo 20 daqiiqo oo qoro 20 daqiiqo oo waxaas aan qoraysi oo macnaha hadal ah aan u gudbiyo guriga ku haystaa oo hooyaday ama aabahay barantiga ay sameeyeen isku duwan markaas sawirka markaas macallinka iskuulka sawirka oo gurigaaga ka haysto waa sawir noocee ah waxa laga haystaa gurigaaga inuu yahay markii uu saas dhaho cunuga jaa sawirka gurigaaga oo iskuulka ay ka haystaan oo cunugan guriga ku soo baxo iskuulka waxay ka haystaan guri cunugan looga sameeyay jadwal ay waalidkiis u sameeyeen oo waxbarashada caawinayo jaa marka iskuulkii haddii xataa uu macallinka ahay macallin maaragtay oo cunuga ku adadkaay ama cunuga يعني أديجا وحق نقطة عنقاجة معناها دفاع نقطة قاشانة نقطة مرك إلمها وحلاقيها بقى إن إسكويت أهين لبسنا عيان لكن مرك يلقب صدان هدوتي ويكوين أنا عيان حتى هدو وحبرشة مرك عنقوين هذا إلى دوكسي السرع إلى جامعة وتجو أقرس كي مرك يريس مركو يرى أقصه بالعودة وقعد وصح صناعي وكم هذا العناية
marka insha allah waxaan rajeynayaa inaan maaragta noqono waalidiin oo horta macnaha jadwalo oo ilmaha banaanka ka caawiyo guriga ka sameeyo. jadwaladaas oo dhan aan carabka kusoo dhuftay waxaan rajeynayaa inaa maaragta gurigaaga aad ka sameyso hadduusan lahayn. hadduu lahay waba lahay weldana kulee hore usii wad, waxaa ku dari karta ku dar. haddii uusan lahayn jadwaladaas oo dhan waxaa la rabaa inuu gurigaaga aad ka sameyso, because jadwaladaas la-aantood cunugaaga waa isku daaleysiin leh mafahanti. man adigana waalid ahaan ma nasanaysid oo maanta 12 cunuga waxaa lagu leeyahay waa saan waxbarashadiisii nidaamkii inaad ka qasmaayo. sidoo kale wiigandigoo kaleeto anaga dadkeen meelahan joogaan ka hadlaya ilmaha waxaan barnaa qur-aankaas laftirkiisa waa in jadwal oo diinta caawiyo lagu kabaa. mar kale hadduu ilaah yiraahdo aan isleeyahay waa ka hadli doonaa, kiliibka wuu dheeraaday. waa idin salaamayaa. video waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen. comment ii reeba, like-ta, subscribe-ta, share-ta intaba waa xagiina. maanta waxaan ku dhahay mawduuceena intaas yar oo waxaan ku dhahay waxyaabo markaas typical aniga ii shaqeeyay iyo waxyaabaha aan isleeyahay waa muhiim ah in soo qaato in la share gareeyay. insha Allah tacaala mawduucyo badan oo xiisaha soo wada hadduu ilaah yiraahdo insha Allah sii share gareey. waxaan ku dhahay subscribe-tan waxaan ku dhahay inta qof walba family-giisa iyo asxaabtiisa ku share gareeyo. subscribe-ka naga soo badiya. intii subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta oo sameysana way mahadsan yihiin. mahadcelin qalbiga idin soo gudbinayaa. jimco wanaagsan aan idin leeyahay. jimciyaa dhexdooda ugu jirnaa. hala baashaalo, ilmaha lagu dadaalo. hadiyada ilaahay uu na siiyey oo maanta lacag iyo waxaan ku dhahay oo la kala dhaxlin waayo awlaada, because maanta waalidka hadduu lacag badan lahayn ka dhaxshaa laga yaaba, laakiin awlaada wuxuu ilaahay bixiyo. marka ilaahay na siiyey awlaad caafimaad qabto ayaa mahad iska lahan. waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin. dhagihiina intaad ama hayseen. bye bye.